dekadda caalamiga ee Berbera iyadoo ka faa'iideysanaysa maalgashiga ay heshay mawqaca istiraatiijiyadeed ee ku taalo iyo sidoo kale marinka Baabul Mandab waxay mar kale isu diyaarinaysaa inay qaadato doorkeedii taariikhiga ahaa ee ahaa inay xudun u noqoto dhaqaalaha Geeska Afrika. ilaa waqtigii la aasaasay dekadu waxay hormood u ahayd dekadaha Geeska Afrika. ahmiyadda dekadda Berbera ayaa ah u dhawaanshaha marinka caalamiga ah ee Baabul Mandab oo ay maraan in ka badan 35,000 oo markab sanad kasta. locationka Berberi ay ku taalo oo sanadkii ay maraan 35,000 oo markab wadadan horteena aynu ku hayno fooda ay soo leexanayaan maraakiib fara badan marka imika dekada aan dhamayno waxa aanu sameyn doono waxa la yiraahdo transshipment in maraakiibta halkan ay ku rogaan dabadna maraakiib yar oo la yiraahdo feederis ay u qaadaan mandaqada haddii alla yiraahdo oo taasna qorshayaasheeda cusub marka dekadu dhamaato aan ku soo kordhinayna ay ka mid tahay dekada mayd tasayla intaba in development lagu sameeyo la horumariyo waa qorshayaasheeda aan ku rajaynaa insha Allah. sanadkii 2016 waxaa heshiis saddex geesood ah wada galay Somaliland, shirkadda DP World iyo dalka Ethiopia oo isagu ah macmiilka ugu weyn ee wax kala soo dega dekadda Berbera. waxa uu heshiisku dhigayay in 30% waxyaabaha ay Ethiopia dibadda ka soo dhoofsato ay ka soo dejisato dekadda Berbera. heshiiskaasi kadib DP World waxay u dhaqaaqday horumarinta marsada Berbera. jiray inaan heshiis soo saxanay saddex geesooda kaasoo u dhaxeeya dalka Ethiopia, Somaliland iyo DP World. marka heshiiska waxa ku xusan in 30% agabka soo mara agabka Ethiopia ay leedahay 30% ka soo degi doonaan dekada Berbera. marka runtii hadda waxa la sugay heshiiskaas uu saxan yahay inuu dhaqan galana waxa la sugayaa marka insha Allah dekadu dhamaato waxaan rajaynaynaa inaanu ka sii badin doono haddii alla ilaa 30%. shirkadda DP World iyadoo uu fulinaysa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay wada galeen Somaliland, shirkadda DP World iyo dalka Ethiopia ee dhigayay in ay dhisto dekad cusub ayaa waxa ay bilowday in ay fuliso dhismaha dekadaasi oo cabirkeedu dhan yahay 400 oo mitir oo haatan ku dhow gabagabo isla markaasina si dardar leh shaqadeedu ay u socoto ayaa marka ay dhamaato waxa la rajaynayaa in ay ku sameyn doonto qalabayn casri ah sidoo kalena waxay ka qayb qaadan doontaa ballaarinta adeegyada ay bulshada u qabato dekadda Berberi. waxa la kordhiyay tirada wiishashka roga kontiinarada iyo kuwa raseeya kontiinarada taasi oo fududeysay shaqadii dekadda hoosna u dhigtay waqtigii ku bixi jiray dejinta badeecadaha oo ahaa waqti aad u dheer. run ahaantii qalabka dekada loo baahay maalin walba waanu casreynaa sanad walba waanu kordhinaa kolba waxay ku xidhan tahay agabka iyo community-ga soo gaadha. berigii hore waxaanu haysan jirnay wiishash waaweyn maanaan haysan wiishka noogu weynaa waxa ahaa 70 tan. alxamdulillah sanadka hore waxaanu keenay 3 wiish oo waaweyn oo mid walba uu yahay 120 tan kuwaasoo ka soo qaadi kara line-ka afraad markabka containerka afraad ee yaala. kaas wuxuu kordhiyay in saacadii waxaan xilliga xagaaga oo kale shaqada waxa la bilaabi jiray labada marna 10ka marka dabayshu istaagto dib weyn bay nagu hayn jirtay dabayshu. alxamdulillah rabbil caalamiin markaanu soo iibsanay saddexda wiish ee waaweyn ee min 120 tanka uma naan baahan maraakiibta wiishashkii ku rakibnaa
sababtoo maraakiibta wiishka ku rakiban markay dabayshu dhacayso markabku waa kan dheeleeya dabeedna halis badan ayay ku keeni jirtay shaqaalaha laakiin iminka mobile harbor crane-kan weyn ee barxadda dekada taagan dabayshu ma laxayso markaa si fiican ayuu uga soo dejiyaa speedkan ku dejin jirnay wuu labin laaba markaa saacaddii 30 container 30 move per hour ayuu sameeyaa alxamdulilah rabbil caalamiin sidaad u aragtaanba shaqadu soo socoto mobile harbor crane-ku waa noocan waa wiishkan waaweyn shaqadu qabanayaa saacaddii iminka berigii hore 8 hour per move bay ahayd laakiin iminka waa 30 container per hour ayaa movekii uu soo rogaa ama saaraa markaa run ahaantii waanu kaga raysannay wiishashkii maraakiibtan isticmaali jirnay maalinta ka dambaysana inaanu sii casraysan aynu jecel lahay insha allahu dee waad indhihiin aad ku aragtaan kani habeen shalay galabtii buu soo galay waxaana laga yaabaa inuu caawa baxo haddii alla yidhaa waxaanu qaadayaa 700 oo container 920 container oo buuxana uu dejiyey dhinaca kalena maamulka dekadda berberi si ay u kordhiyaan cududa iyo aqoonta shaqaalaha ka howlgala dekadda ee kala duwan waxaa loo furay shaqaalaha ka shaqeeya dekadda tababaro kala duwan oo aqoontooda iyo weliba farsamadooda kor loogu qaadayo si loo casriyeeyo adeegyada kala duwan ee ay dekadda berberi ay bulshada siiso waxaan qaadanay dabka soo loo baqtiyo fayrka loo baqtiyo maadaama fayrku ay cadow kamid ah dacwadiyada adduunka ee anti badan baabiyay koorsiga labaad waxa weeyaan Vessel Traffic Service Operator. muddo 40 sano ka badan oo ay dekadda berberi isticmaalaysay hal taag oo ah kuwa maraakiibta soo xidha waxa ay hadda hay'adda dekadaha Soomaaliland ku guuleysatay inay soo iibiso 2 doomood ama taag boats oo ah kuwa maraakiibta waaweyn soo xidha qayb weyn ka qaadanaya horumarka marsada berbera taagan waxa la magaciisa MT Igaal motor tag Igaal ay leedahay Igaal waxa lagu dhisay wadanka Turkiga waxaana dhistay shirkadda Sanmar Shipyard baa lagu dhisay waxaana la bilaabay dhismihiisa 2012 la bilaabay wax leedahay leeyer baa wax liga bilaabay lafdhibarta la dhigay waxaanu dhamaaday 2014 uu dhamaaday berigii hore dekaddu waxay lahaan jirtay hal taag oo da'diisu ahayd 42 jir taasi waxay ku tusaysaa in qaybta mareenku aanay aad u dhisnayn hadda waxaanu keenay hadda waxa jooga taag cusub oo 3500 oo horsepower ah kaasoo wata qalabkiisii dabdamiska mid kalena hadda waxaan ka soo iibinay Turkiga uu soo socdaa wuxuu imanaya insha Allah wiiga horeeya September bisha 9aad waxay sidoo kale hay'adda dekadaha Soomaaliland keentay pilot boat oo isaguna ka mid noqonaya qalabyada badan ee dekadda lagu soo kordhiyay doontaasi oo ay raaci doonaan bayloodiyada dekaddu marka ay maraakiibta soo xidhayaan waxa kale oo soo kordhinay pilot boat cusub oo iyaduna ay fuuli doonaan bayloodadu maadaama hogaagu kula shirtaga berigii hore waxaanu bayloodka markabka soo xidhay waxa lagu qaadi jiray huuri yar oo injineer 40 saaran yahay markuu hoos tago ama ku sii socdo markabka weyn ee sida 10,000 container waxay moodi jireen babur cadbadeed sharaf dhacna wuxuu ku ahaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin hadda waxaan u soo iibinay pilot boat cusub oo aad arki doontaan insha Allah taasoo qalabkeedii isgaarsiinteediiba leh marka alxamdulillah rabbil caalamiin
wakhtiyadii hore waxa ay dekaddu dhibaato kala kulmi jirtay la socodka dhaqdhaqaaqa maraakiibta maraysa badaha waaweyn ee dunida. hadda waxay hay'adda dekeduhu ay ku soo kordhisay dekadda aaladda Vessel Track oo ay howlwadanadu dekaddu kula socon karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada maraakiibta dunida maraya. markabka soo socda magaciisa meesha uu socdo speedka uu ku socdo dekadda uu tagayo intaba waxa ku siinaya VTS-ka ama Vessel Tracking System-ka. Motor Vessel OK August Berbera Port Control. xafiiskani wuxuu qaabilsan yahay isku xidhka shaqada dekadda hadday tahay wax ka soo gelaya dibadda iyo hadday tahay wax ka baxaya marka u horeysa ee laga shaqaynayo wixii weel ah ee soo gelaya xafiiskan waa xafiiska ugu hor ogaada. waxaa jira port control oo ah controlka laga hago maraakiibta maraysa marinbiyoodka Somaliland iyo kuwa ku soo xiranaya dekadda. port controlkaasi 24 hours shaqaaluhu way isbedelaan. waxa ku yaala qalab aad u kala duwan, radarkii baa ku yaala, radioogii lagu hadlayay maraakiibta ku yaala, ISS-kii baa ku yaala, sheegayay markabkaasi nooc uu yahay. waxa kaloo ku yaala Vessel Track wax la yiraahdo oo aan ku aragno caalamka oo dhan maraakiibta soconaysa. dekad kastana aan isdul taagi karnaa. markaan markabka la saaro kiiga automatic buu soo saarayaa numberkiisa halka uu socdo, wuxuu sido destination ka yimi ku socdo. marka waxaanu haynaa oo port controlka laga maamulo sida diyaaradaha kale. dabeedna waxay u baahan gurmudna halkaas ka hadlaan oo halka laga controlo operationka dekadda oo dhan iyo markabka la furayo la xirayo waa controlka lagala hadlo. hadda dekaddu waxay awooday in 700 ilaa 800 oo markab sanadkiiba ay ku soo xidhaan, taasi oo ka dhigan in isticmaalka dekadda uu koror aad u weyn ku yimi. runtii maalinba maalinta ka dambaysa maraakiibtu way sii badanayaan. iminka qiyaas ahaan bishii waxaa noo yimaada inta u dhaxaysa 38 ilaa 45 markab. marka sanad ahaan marka la isu geeyo waxaa noqonaya inta u dhaxaysa 750 ilaa 800 markab. labadan markab ee aad arkaysaan waxa la kala yiraahdaa MV Caadil 1 iyo MV Xaaji Qusaan J, waana maraakiibta qaada xoolaha loo dhoofinayo wadamada Carabta. idinku indhiina ku arkaysaan waxaa dekadda ka baxaya geelaasoo tegaya laba wadan oo kala ah Masar iyo Sacuudi Arabiya. markabkan waxaa la yiraahdaa MV Caadil 1 wuxuu qaadayaa 2630 geela. waxaanu tegayaa Sacuudi Arabiya, waxaanu ka degi doonaa insha Allah dekadda Jidda. sida kale aad arkaysaan markabka kale waxaa la yiraahdaa MV Xaaji Qusaan J, isna wuxuu tegi doonaa wadanka Masar. waxaanu qaadayaa xoolo geel dhan 1500 oo neef. xoolahan iminka bilihii u dambeeyay way socdeen runtii wadamo badanna way tagaan oo Sacuudiga iyo Masar iyo Cumaan iyo Bahrain iyo Yaman ay ka mid yihiin. habeen walbana ka baxan dekadda Berbera. markabkana waxa uu ka yimi wadanka Mareykanka, waxaanu sidaa shixnad mucaawino ah oo ay leedahay hay'adda WFP uguna tala gashay dalka Ethiopia. WFP
oo dhammaan badeecadaha agabka kala duwan iyo weliba macaawinooyinka kala soo degi jirtay dekedaha dariska ah ayaa hadda go'aansatay in 60% agabkeeda iyo mucaawinada ay keenayso bariga Afrika inay kala soo degto dekedda magaalada Berbera. ammaanka dekedda iyo kan badduba waxa uu muhiim u yahay shaqada dekedda Berbera oo la rabo inay u shaqeyso si la mid ah dekedaha ficeeda ee adduunka. sidaas daraadeed waxa amniga gudaha dekedda lagu ilaaliyaa kamarado fara badan oo kuwa ammaanka ah oo lagu xidhay gudaha iyo dibadda dekedda si loola socdo dhaqdhaqaaqa dekedda, halka dhinaca baddana ay ka ilaalinayaan ciidanka badda Somaliland oo ku qalabaysan qalab casri ah. ciidanku kulley dhowr xaaladood ka shaqeeyaa dhan nabadgelyadu ka shaqeeyaa dhan wuxuu ka shaqeeyaa kontrabaaga dhan wuxuu ka shaqeeyaa dakhli xiraynta oo wuxuu badda u ilaaliyaa oo wax alliya wixii kalluumaysata sharci darraa ee soo galaya u ilaaliyaa. ciidanku 24 saacadood wuxuu u diyaar yahay isagoo qaybsan inuu ka hawl galo wax alaale wixii baddeena sharci darro ku soo galaya wixii cadow ah dhaqdhaqaaqa ka socda gaar ahaan dekedda. marka dekeddaasi cusub ee 400 mitir ah lagu daro guud ahaan dekedda weyn ee Berbera ay waraabin doonto inta badan bulshooyinka Geeska Afrika, halkaasi oo la rajaynayo in qaranka Somaliland ay uga soo xaroon doono dhaqaale iyo weliba cashuur aad u ballaaran.